Dalka Hindiya waxaa ka dhacday dhacdo sababtay dhimasho tiro badan. Dad gaadhaya 134 qof ayaa ku naf waayay kadib markii ay duntay buundo ku taalay dalkaasi. Qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa waxay ahaayeen caruur, iyadoo mas'uuliyiintuna ay furtay kiis dambiyeed. Waxaana dhacdadan loo diiwaan geliyay mid ka mid ah shilalka ugu dhimashada badan ee dalka ka dhacay 10kii sano ee la soo dhaafay. Muuqaalo laga soo duubay burburka ka hor ayaa muujinayay kooxo dhalinyaro ah oo sawirro qaadaya halka qaar kalena ay isku dayayeen inay lulaan buundada ka hor inta aysan ku dhicin webiga hoose, iyadoo filooyinka isku hayay ay meesha ka baxeen. Buundadani cagmareenka ahayd oo la dhisay xilligii gumaysiga ayaa waxay ku taalaa bartamaha magaalada Morbi, waxaana soo buux dhaafiyay dad daawanaya oo ku raaxaysanayay damaashaadka ciidda markii ay duntay fiidkii Axadda. Ilaa 400 oo qof ayaa iibsaday tigidhada si ay u galaan buundada si ay uga dabaaldegaan ciidaha Diwali iyo Puja, wax ka yar hal usbuuc kadib markii dib loo furay buundadani oo dib u habeyn lagu sameeyay. Ilaa 35 qof oo ka mid ah dadka dhintay ayaa waxay da'doodu ka yarayd 14 jir sida ku cad liiska dadka dhintay. Ilaa 170 qof ayaa la soo badbaadiyay subaxnimadii. Shilka kadib dadka ayaa ka soo laalaaday buundada balse way siibteen oo waxay ku dhaceen webiga markii uu dumay. Waxa sidan yiri Raajo ah goob jooga magaciisa ku sheegay hal magac oo kaliya, waxaanu intaasi ku daray habeenkii oo dhan ma seexdo maadaama aan gacan ka geystay gurmadkii loo sameeyay dadkaasi shilkani ku waxyeeloobay, waxaana keenay cisbitaalka caruur badan. Waxaan xasuustaa sida ay xaaladdu ahayd markaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dawladda ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhayso 134. Sarkaal kale ayaa isna goobta ka sheegay in biyaha webiga ee dhooban ay caqabad ku yihiin samata bixinta dadka, waxna laga yaabaa inay jiraan dad ku hoos xaniban hadhaaga buundada. Boolisku waxay diiwaan geliyeen kiis ciqaabeed ka dhan ah dad aan la magacaabin oo mas'uul ka ahaa dayactirka iyo maamulka buundada. Sidoo kale dawladdu waxay samaysay koox ka kooban 5 xubnood si ay u baaraan masiibadani. Buundada ayaa waxay hore u dayactiray dawladda hoose ee degmada, taasoo dadka ku soo koobtay hal marba 20 qof inay istaagi karaan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dawladda. Waxa uu intaasi raaciyay tigidhada goobta ayaa loo iibiyay si bilaa qiyaas ah, waxaana hal mar goobta yimid dad aad u tiro badan, waana sababta keentay inuu burburka buundadani dhaco. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa tacsi u diray dhammaan qoysaskii ay dadku kaga dhinteen burburka buundadani.